وين سلام مركز أصحابك وسلوا channel كنا فضلا هاي لوجن هذا channel سبسكرايب كرينا سبسكرايب كيس فيديو كلا سعتد إن شاء الله فيديو حمين قيبتي الصدحات ساد كقيبتي الصدحات بارتي الصدحات إن كويس وحلين يحرير كامتحاماتك ميت كلام كان حويان وحلا حرير فيديو كواد أما كيلو عدد كود ساد يعني ساد كحويان قيبتي سلبات ويان كان at the same time حد كود بحنسا college board halka site unbaad wada gelaysaa waa college boardkan aan ku jirno weeyaan so and pointed toos u aadno registration kaad ku dhufan and that's how you apply marka waad yani haddii aadan lahayn inaad account aadan lahayn videogii hore ayaad fiirin kartaa registration kaad eegin then waad ku dhufani and waxa weeyaan ways kala maray waa isku mid ugu dambaysta unbaad dooranaysaa imtixaanka aad gelayso markaas waxa weeyaan page waxaa jira ku tusaya saad miyaad gelaysaa or SAT2 miyaad gelaysaa marka unbaad SAT2 dhahaysaa oo halkan bay ku kala duwan yihiin and payment-iga markaa buu kuu sheegaya intaad bixinaysa laakiin inta kale site-ka dhan waa isku mid aan ku durqo inta ugu muhiimsan imtixaankan waxa weeyaan imtixaankan waxaa la soo saaray 1937 yani waxa weeyaan 1937 baa asaga la soo saaray wuu ka dambeeyay yani SAT-ka wuu ka dambeeyay imtixaankan yani imtixaankan wax kale ma aha imtixaankan waxaa loogu talagalay dadka yani achievementigooda qofka achievementgiisa in lagu baaro yani halka kale uu ka yahay aptitude-ka qofka yani IQ question somehow tusaale ahaan waxaa jirta SAT-ka oo kale qofka waxaa loogu talagalay markii hore SAT-ki markii la sameynay waxay ahayd around 1926 somehow marka waxa weeyaan markii la sameynay oo kale waxaa loogu talagalay kala military IQ questions bay ahaayeen markii kood yani askarta marka la maskabeeyaan somehow waxaas baa loo isticmaali jiray laakiin then serious change baa dhacay and waa la beddelay and then ilaa markii dambe skillska ardaydu ku bartaan iskuulaadka waxaas lagu soo daray and then markii dambe xataa college-yada iyo waxaas baa isticmaalin that oo markii dambe uu popular ku noqday marka SAT-ka kaas weeyaan then kaas always meant to be aptitude yani mar walba qof SAT-ka waxaa loogu talagalay caadiga aptitude ahaanka waxaa in lagu qiimeeyo laakiin halka SAT2-ga loogu talagalay ama SAT subjects-ka waxa la dhaho halka asaga loogu talagalay maxaan dhahaye in loogu talagalay qofkan in achievementigiisa lagu baaro ama qofkan wax soo saarkiisa ama qofkan heerka uu ka taagan yahay waxbarashada qaybta la xiriirta skillska sida mathka biology-ga chemistry-ga and physics somehow so information ahaan horta saas weeyaan ha ku khaldamin ha moodin inuu SAT2 yahay yani version adag oo kamid ah SAT1-ka inuu yahay ama lagu leeyahay SAT2 macnaheedu waxa weeyaan SAT1-ka oo la soo adkeeyay imtixaanaadkiisa like that waxa weeyaan way kala duwan yihiin SAT1 iyo SAT2 bay kala yihiin and then SAT-kan yani 1-ka aan magaciisa ku darayno waxa weeyaan kan ka kooban English-ka and Math-ka kalaata wuxuu SAT2 kaga bedelan yahay kan kale sidoo kale wuxuu ka kooban yahay maadooyin inta dhaafsiisan bal aynu eegno wax kamid ah bal maadooyinkaas and how so here we go يعني هذا فرق وين u dhaxeeyo xawayaan horta sidan ba SAT2-ga loo maxaan dhahay loo jaraa dibcihiisa tusaalahan 1/4 yani halkii meel afar meelood ba yani meel oo kale yani 1/4 point ayaa laga jaraa qofka markuu 5 su'aalood oo incorrect ya oo 5 su'aalood markuu khaldo markuu maxaan dhahay every incorrect 4 choices na yani afar su'aalood markuu khaldana waa 1/3 point deducted yani ayaa laga jaraya markuu saddex yahayna at the same time 1/2 marka isaga saas horta loo qiimeeyaa halkan waxaad ku arkaysaa farqiga u dhaxeeya imtixaamaadka so for example format kama yani waqtiyada inta loogu talagalay oo kale SAT-ka math English-ka ka kooban waxaa loogu talagalay 3 saac iyo 50 minute multiple choices-kiisuna يعني multiple choices bay ka kooban yihiin laakiin asaga with one essay yani essay question essay baa la socda kan marka waxa weeyaan videoga hore si fiican kugu faahfaahinay SAT-ka essay waxay kala yihiin marka kan waxa weeyaan SAT with essay oo la socda marka insha Allah hadii halkaas aad waxaad ka fahmayso jiro videoga hore aadi oo essay-ga si fiican kugu sheegay SAT-ka halka iska soo galayaan halkan waxa weeyaan SAT2-gi waxa weeyaan asaga waa hal saac iyo multiple choice laakiin si wax kale lama socdo subject matter-ka fiiri halkan waxa weeyaan subject-iga halka SAT-ka uu ka yahay reading and math and writing subject wuxuu ka yahay 20 different topics listed above yani 20 topic different topics yani 20gaas dhan maahan inaad wada qaadanayso macnaheedu for example waxa ku jira maadooyin luqado kale ku jira Japanese baa ku jira Ukraine Korean I don't know Korean bad
Japanese and Chinese somehow maadooyinka kale Spanish and Francis waxaas baa ku jira laakiin adi markaas waxaad adi dooranaysaa oo kale luqada aad rabto yani marka mar walba waxaa jirta choices aad ku galayso marka adi inta badan saatuga waxa waaye math xataa mar math bas noqon kara ayaa jirta oo waxa kale oo dhan waad dhinaa garan kartaa so anyway farqiga u dhaxeeya waa sidaa so markii noqoto guessing penalty no yani marka ku dhahayo kama dhigin inuu asaga ku diidayo guessing yani waad gas garan kartaa laakiin insha Allah taasna qaabka wax loo gas gareeyo saadka marka imtixaanka lagu jiro gaar ahaan saadka marka imtixaanka saadka la marayo qaabka loo gas gareeyo baan insha Allah idin tusi doonaa mar ma ahan yani inaad faraha ku tirinaysa ama aad yani saas oo guessinggiisa yani marka kale ma ahan it's not like that marka way kale waxa jira loo gas gareynayo laakiin oo aad uga fiican wayga yani all guessinggiga in soo naqaanay hadii aad number ku tirinaysa hadii aad yani ko laba aad ku qabanayso anyway insha Allah guessing penalty laakiin kan bas guessing penalty waxa jira opportunity ama probability aad ku heli karto waxaas markii noqoto maxaan dhahay guessing penalty aan dib u yar noqdo su'aalahan dib u aadaya waxay noqoni tusaalahan Englishka iyo mathka yani saadka waxa weeyaan wuxuu ka koobnaani afar question afar answer choice buu ka koobnaanaya waxa weeyaan only saadka markii saadtu noqoto wuxuu ka koobnaanaya 5 question yani 5 answer choice so halka waxaad ka garanay high yani probability inuu high yahay inaad garato qaybta afarta question sababtoo boqolkiiba waxay ka noqonayaan 25 midkiiba laakiin markii 5 su'aalood noqdaan as long as waxaan ka wadaa choices ku ay noqdaan waxa as long as choices ku bataan lagu siinayo waxa weeyaan waxa yeelanaya probability aad ku gas gareyn karto jawaabta saxda ah because way si yaraanaysaa tusaalahan saatu oo kale waa 5 choices mark choice answer and choice answer kaas shanta boqolkiiba 5 bay ka noqonayaan yani mar walba uu ka yaryahay ka kale because kan kale waa afar question oo waxa weeyaan gastaanka marka loo waxa bal aynu eegno waxa weeyaan markii la dhaho which is schools require it yani markay noqoto saadka ama saatuga يعني سدا سكول إنه يعني جامعة هيبة أقبل هذه متكلم كون أحسن يعني because هذه واحدة ربطانة جامعة والبا أبلاي كريس هذه أي شيران يعني special universities أنا ربطه إنها تساتوه كشوت واحد كعرس writing English كي واحد كعرس وكله والغي أبا إنه تكشي ساتوه لكن مرة الواحد كون أحسن سات كأي كون أحسن why here we go يعني سات كأكله almost all colleges except يعني سات كcollege والبا أقبله هلك أو سات توجا أي some only colleges بس أيها كأخبار تكون هذا وحويان inside United States كان فيرنا كوا كأخبار لكن always واحد وغان زينو وطن والبو شوكتيد ويكد وانت صاران هذا شوكتيد صاران سوماليا أما Europe countries هذا شوكتيد دي أفريقيا وطن كمان هذا شوكتيد Western كميدل Western وحاس وحويان أدمر وطن كهذا شوكتيد واحد كخبر يصير requirements كإنت require كريسة توه لكن الله دي أدركته إن أنت سكول دبن أما ديب كاس أذن قلين إن يعني جامعة والبا مقولش والبعد بيحجو waxaad ka shaqeynaa saadka because saadka waxa weeyaan almost all colleges adduunka dhan way wada aqbalaan saadka inta badan requirements ka saadka kala talwa waxa weeyaan inaad ESA raaxiso because ESA uu u fiican yahay collegeyada barkood baana dhahaa yani saadka waa inaad college waa inaad ESA raaxiso because saadka itself ba waxa kala noqonayaan saad and saad with ESA bay kala noqonayaan saad and saad with ESA bay kala noqonayaan marka insha Allah video hore si fiican ku fahansin adii aan fiirino insha Allah very selective colleges doortable United States ka collegeyada gaarka u doorto waxa kamid ah Stanford Harvard laakiin waxaan dhan yani at the same time waxay dooranayaan saadka caadiga marka adi yani mar walba waxa ku wanaagsan inaad saadka iska gashid saadka every single university in the world way aqbali halka ay saatuga ay university barkood ku dhahayaan we don't require this marka adi mar walba waxa ku wanaagsan inaad saad wanka gashid kaas waa only advice insha Allah waxa weeyaan qaabka loo buuxinayna waa waxa weeyaan waxaad galayso waa isla application-kii hore insha Allah aan ku faahfaahinay videodii hore mid kamid ah and that's how you apply marka insha Allah hadii aad fahantay waxaad isku daydaa insha Allah inaad like garayso inaad subscribe garayso because insha Allah inta kuma ay kaanayno videoda kale ee soo socda saad ula socotid subscribe garay channelkeena videoana share garay hadii uu ku caawiyo insha Allah hadii imtixaamaadkan qof u diyaara ama aad galayto waxaan ku rajeynaynaa khayr insha Allah